aqalka madaxtooyada Soomaaliland caawa ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada dalka ee ucud wadani iyo kulmiye oo arrimaha doorashooyinka lagaga hadlayay ayaa ugu dambeyn gorfayn dheer kadib waxa la isla gartay in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay ku qabsato dhamaadka sanadka 2010 in si wada jira ay uga wada hawlgalaan xalinta iyo dhamaystirka wax kasta oo ku xidhan qabsoomida doorashada in si niyad samiya loo si wada tashiga iyo wada hadalada saddexda gudi ee xisbiyada qaranka in wixii caqabada ee soo kordha laga wada tashado afarta qodob ay isla garteen madaxweynaha Soomaaliland iyo saddexda xisbi qaran gudida doorashooyinka Soomaaliland oo ahaa qodobkii ugu weynaa ee isku hayeen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumaddu ayaan lagu soo hadal qaadin heshiiska dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada dalka يكسجا يملذا دلكنا أيا كتبتي سهيسا تركيا دوغا افتماي هودا أدوغا نصغي مرها هوبان تهوفتي إلا عقيبكا كوهوري هوري إلا عقيبكا كوهوري يكسجا يملذا دلكنا يكسجا